Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Soo dhawaada mar kale. Muuqaalkeenan waa muuqaal aad u xiiso badan ama sheekadeena. Sheekadan waa sheeko aad u xiiso badan oo ku saabsan daanyeerkan. Markaa fadlan dhamayso sheekadan waa sheeko aad u xiiso badan. Daanyeerkan yar waxaa korsaday ninkani. Ninkan wuxuu doonayaa daanyeerkan yar in uu geeyo iskuul ama goob waxbarasho. Wuxuuna u tagay macallimadda wuxuuna ku yiri daanyeerkan yar ayaan rabaa maadaama uu yahay mid aad u maskax badan inaad igu dartaan waxbarashada oo aad iskuulka igu dartaan. Macallimaddu waa yaabtay waxaan ku tiri caqligal ma aha suuragal ma aha waa daanyeerkuna bini'aadanka waa u dhow yahay laakiin waxba lama baran karo waxna lama dhigan karo. Wuxuu ku yiri anu waan ku kalsoonahay waxbarashadiisu waa heer sare aniga ayaa tijaabiyay aniga ayaana aad kaaga huba. Kadib macallimaddu waxay ku tiri hay hadda iska taga beritoole waxaad u timaadaan maamulka ayaa idin qori doona haddii idin yeelo. Markaa isagoo kalsoonin badan ku qaba ninkan la saaxiibka daanyeerkan yar ayaa daanyeerkii yaraa waxa uu geeyay goobta lagu cabo shaaha ama meelaha cafeteria-da. Waayo daanyeerkan aad ayuu u jecel yahay maskaxdiisana uu ku kalsoon yahay daanyeerka yar aad buu u doonayaa waxbarashada. Hadda waxa uu u diyaarinayaa oo uu sii tababarayaa sidii uu iskuulka u tagi lahaa iyo qaabkii loo dhigan lahaa. Daanyeerkan yar aad ayuu xiiseeyaa si fiican waa ula sheekaystaa ninka la saaxiibka waxyaalo badan ayuu ka tijaabiyay qaab qoraalkiisa maskaxdiisa sida uu bini'aadanka ula dhaqmi karo kadibna cajiib inuu yahay ayuu og yahay. Kalsooni badan ayaanu ku qabaa daanyeerkan yar waxa uu la daawadaa muuqaalada TV-ga ayuu la daawadaa si fiican ayuu ula daawadaa si fiican ayuu ula sheekaystaa ninkani juhdi badan ayuu geliyay daanyeerkan yarna hadda waxa uu u sii wadaa oo uu doonayaa in uu maanta geeyo iskuulkii waliba maamulihii uu u tago uu ku yiraahdo daanyeerkan yar ayaan rabaa in waxbarasho la igu daro. Kadib maamulihii waa uu ka soo gudbay oo waa la soo ogolaaday wuxuuna ku soo noqday macallimadii ayuu ku yiri waxaad ii eegtaa faylkan inuu ku jiro wiilkan oo la diiwaan geliyay. Hadda macallimaddu waxay ugu eegaysaa kombiyuutarka oo maamuluhu sii diiwaan geliyay. Kadib macallimadii waa ay yaaban tahay waxayna u qaadan laadahay daanyeerkan yar ayuu doonayaa ninkani caqligiisa inuu ku soo daro iskuulka oo wax barto. Waa ay la yaaban tahay kadibna waxa uu ku yiri kadib waxay ogaatay in faylkii ku jiro wayna ay soo kaxaysay daanyeerkii yaraa waxayna keentay galaaskii. Hadda galaaska waxay u sharaxaysaa oo leedahay daanyeerkan yar ayaa idinku soo biiray halla yaabina waa mid aad u maskax badan sana loo sheegay kadibna waad ogaan doontaan wixii khalad uu sameeyana waad ka warheli doontaan. Hadda ardayda ay u sharaxaysaa waxayna leedahay daanyeerkan yar ha ka biqina wax dhibaato ah ma geysanayo waa daanyeer yar oo awliye ah oo aan cidna dhibaateynin. Kadib ardaydii waxay noqdeen qayb la yaabtay iyo qayb aan weli u qaadaninba inuu daanyeerkan yar yahay mid wax baran karaya. Ardaydu waa ay yaaban tahay macallimadii ayaa si fiican ugu sharaxaysa ardaydii si ayna uga shakiyin waxay ku tiri kursi gaar ayaan ku fadhiisanayaa waxbarashadiisa aniga ayaa gaar uga warhaynaya aniga ayaana gaar u wareysanaya idinku fadlan waxaad samaysaan ha u dhawaanina. Kabacdi wuxuu yimiday galaaskii kadibna galaaskii ayaaba la qoray galaaskii ayuu ardaydii wax la dhiganaya si akhlaaqad leh oo wanaag leh ayuu ula fadhiyay maadaama uu soo tababaray ninka la saaxiibka daanyeerkan yar ee haysan jiray. Kadib daanyeerkii yar guriga ayuu ku soo noqday wuxuuna u yimiday saaxiibkii wuxuuna ku yiri si fiican ayaan u soo fahmay waxa la ii soo dhigay macallimaddu waa ii ogolaatay maanta aad ayaan u faraxsanahay labadooduba ay wada faraxsan yihiin aad ayaan u wada baashaalayaan waayo waxa ay ku soo guuleysteen in iskuulkii uu galo. Maalintii labaad iskuulkii uu ku noqday kabacdi wuxuu ninka saaxiibka u sameeyay kursi gaara miis gaara iyo wax ka duwan oo ka tayo sareeya waxa ay ardaydu ku fadhido. Si fiican ayaa una wax ula bartay. Ninka waxa uu soo qalabeeyay gurigiisii kombiyuutar u soo dhigay waxbarashadii dhammaan wuu ku caawiyay. Daanyeerkan yar aad ayuu u faraxsan yahay wuxuuna ku faraxsan yahay wixii loo soo dhigay wuxuuna u akhrinayaa si ayna ardaydu u akhrinin oo xad dhaaf ah maskaxdiisuna aad ay u fiican tahay. Heer haddaba waxa uu gaaray ardaydu u yimaada kadibna uu u sharaxo wixii shalay loo dhigay. Ardayda qaarkood la yaaban tahay qaarkoodna waxay u qaadan leeyihiin sida uu wax u xiftiyay iyo sida wax u barayo. Hadda waxa uu barayaa qayb ka mid ah casharradii oo uu halka ugu qoray samuurada ardayda ayuu leeyahay dhankan soo eega casharradii shalay naloo dhigay ayaana dib inoogu marinaya. Miiskiisa ayuu ku soo fadhiistay ardaydana wuxuu ka dhageysanayaa casharradii waaba ay la yaaban yihiin wuxuu noqday nin aad u maskax badan oo waxbarashadiisii heer sare ka gaaray oo aan la oran karin kan ayaa daanyeera. Hadda waxa uu joogaa gurigii waxaanu akhrinayaa casharradii iyo waxyaalihii loo soo diray ninkana kalsooni badan ayuu ku qabaa wuxuu u diyaariyaa wax wala oo uu u baahdo daanyeerkan yar. Daanyeerkii iyo ninkii waxay tageen cafeteria-dii maalintii ugu horreysay ay wada joogeen ee ay shaaha ka cabayeen si ay iskuulkan ay u qabanqaabiyaan gelistiisa. Hadda daanyeerkan yar wuxuu ku leeyahay aad ayaan ula fahmay waxbarashadii waana ku faraxsanahay heer sare ayaan ka gaaray waxbarashadaydii. Sheekadan halkaas ay soo gabagaboobaysaa daanyeerka yar waxbarashadii heer sare ayuu ka gaaray wuxuu noqday mid aqoontiisu ay cajiib tahay.
fadlan kanaalka haddaad ku cusub tahay sheekooyinkan iyo sheekooyin kale oo kasii badan ayaan idiin soo gudbin doonaa kana xiisa badan. Sheekadan waa sheeko gaaban oo aan kusoo qaadanay daanyarka yar. Fadlan subscribe saar kanaalka naguna xidhnow, aad baad u mahadsantahay.